Soomaalidii hore waxay ahaayeen kuwo xiriir fiican la lahaayeen ilbaxnooyin kala dambeeyay ee dunida soo maray, gaar ahaan kuwa isgobolka ahaayeen iyo kuwa kaleba, sida ilbaxnooyin Farciyiintii, Qariiqiyiintii, Farisiyiintii, Roomaankii, boqortooyadii Saba iyo Ximyar ee dalka Yaman, iyo tii Xabashida oo ay dariska ahaayeen. Daraasadii ugu dambeeyay dhanka taariikhda laga sameeyay waxay daha ka rogayaan in Soomaaliya lahaayeen ilbaxnimo soo jireen ah oo aad u horumarsaneed, ayagoo qoraalka luqadihii jiray qaarkood yaqaaneen bilowga qarnigii miilaadiga. Xilliga Islaamku soo iftiimayna ee diin Islaamka si fudud ugu faaftay dadkii Soomaali ahaa, taasoo gacan weyn ka geysatay xiriirka ganacsi ka dhexeeyay dadkii Carabta ahaa. Soomaalida waxay diin u soo gudbisay haliyey wax muuqda ka bedelay taariikhda. Haliyaas waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii abuuray xulafadii Islaamka ee nabadgelyo xiriirka korkiisa ahaatee qabriga rasuulka ka difaacay cadowga doonay inay cid kala baxaan. Waan haliyaga aan barnaamijkan ku soo gudbihayno ee Axmed Ibraahim Qasali oo kuma dheer Axmed Guri. Inta barnaamijkan ku jirno waxaan ku qaada dhigi doonaa duullaamada ee Boortaqiisku dunida ku soo ekeysay qarnigii 15 qarnigii 16aad ee taariikhda miilaadiga. waana xilligii Boortaqiisku qorshe dagaal ku dareen inay qabsan oo gacanta ku dhigaan magaalooyinka rasuulka ee Suubanaa nabadgelyo xiriirka korkiisa ahaatee Madiina al-Munawwara si ay ula baxaan oo u xadaan qabriga rasuulka. xilligaasna waxay ahayd markii Boortaqiisku ka soo jeesteen Ingiriiska iyo gobolfaladii ay ka geysteen dalka Hindiya kadib u soo jeesteen dalka Jasiiradda Carabta. ciidamada Boortaqiis waxay horkacayeen Fawzta Al-Mida oo lagu yaqaanay xaqda iyo xumaanta u hay Islaamka, asagoo horena uga soo dagaalamay dalka Morocco, gacana ku lahaa go'doomintii la saaray magaalada Qirnaada ee dhulka Andalus oo ahayd gacantii ugu dambeysay Islaamku ku xukumayeen qaaradda Yurub. xilligaas oo dalkiisa Boortaqiis ay ka lixisay dalka Isbayn. ciidamada Boortaqiis waxay qabsadeen Jasiiradda Soqatra oo hadda iyana xukunto magaalooyinka Masqat iyo Saxara oo iyaguna haatan ka tirsan Saldanadda Cumaan. xilligaas gobolka Xijaaz wuxuu ku hoos jiray dowladda mamaaligta oo xarunteedu dalka Masar ahayd. waana xilliga dowladdaas daciiftay oo tabarteed sii wiiqmaysay maalmahan xigta, wax taagan uma haynin inay dhistaan ciidan badan oo ka hortaga cadowga Boortaqiiska. si kastaba ha ahaatee markay Boortaqiisku ku soo dhawaadeen biyaha Badda Cas, sultaankii mamaaligta Masar waxa uu codsi taageero ra'iis u dirsaday boqorka Cusmaaniyiinta ee Baabaysiidkii labaad oo ka mid ah inamadii uu dhalay Maxamed al-Faatix, kaasoo Masar u soo diray boqolaal maraakiib ah oo sidii alwaax iyo maal fara badan si ay u dhistaan batal iyo ciidanka badda ah oo xoog leh. markii tagada soo gaarteen waxay dhisteen oo dib u hagaajiyeen dekedda magaalada Jidda, waana dekedda xilligaas hadafka u ahayd duulaankii Boortaqiiska maadaama ay u xiriirinaysay halka ugu dhow ay ka gaari karaan magaalooyinka Maka iyo Madiina. xaakimka mamaaligta ee magaalada Jidda Xuseen al-Kurdi waxa uu amar ka helay suudaankiisii fadhiyay magaalada Qaahira, waxaana la amray inuu gidaar ku wareejiyo magaalada Jidda, waana gidaarka halkaa ka dhisnaa tan iyo qarnigii 20aad. intaa ka bacdi muslimiintu waxay bilaabeen kaarta ay ka hortagi lahaayeen Boortaqiiska, waana kaarta taariikhda gashay oo xulafo Islaam ku damariyeen ciidanka cusub ee Boortaqiiska ee ku sugnaa biyaha Badda Cas, isla markaana si toos u abaareen oo u weerareen fariisin ciidanka Boortaqiis ee ka soo ambabaxeen ee dalka Hindiya. waana kaarta ay ku doonayeen inay maska madaxa kaga jaraan ku qabsadaan dhulkii Boortaqiis ku xukumayay dalka Hindiya. ciidamada xulafo Islaam oo ka koobnaa boqortooyada Cusmaaniyiinta, dowladdii mamaaligta iyo dowladda ujeedada Islaamka Hindiya lahaayeen ayaa si wadajir loo mideeyay ayay amaaduul laga dhigay Xuseen al-Kurdi oo ahaa xaakimka mamaaligta ee magaalada Jidda. ciidamadaas markii ku dhawaadeen xeebaha Hindiya waxay iska hor yimaadeen ciidankii Boortaqiis ee fadhiyay dalka Hindiya oo uu watay in uu dhalay xaakimka Boortaqiis u fadhiyay dalka Hindiya, waana sanadkii 1508 miilaadiga oo ay dhacday goobta colaadda ee dhanka badda oo muhiimad weyn u lahayd taariikhda Islaamka. waana colaaddii Shaaweel oo muslimiinta guusha weyn ku raacday, waana goobtii lagu dilay ciidanka Boortaqiiska. guuldarada soo gaartay kabacdina waxay Boortaqiis taageero ka soo direen magaalada Lisbona, waxaan dagaalka badda laba dhinac afka isku dareen badda Carbeed iyo Boonta Hindiya. waana maalmihii u dambeeyay ay sii dhicisay dowladdii mamaaligta ee Masar xarunta u ahayd. ciidamadii gurmadka ee Boortaqiisku waxay qabsadeen dhulka haatan loo yaqaan Eritrea, waxaana dees lahaa boqortooyadii Adal oo ka dhisnay dhulka haatan loo yaqaano Somaliland, Djibouti iyo deegaan ka tirsan waddanka Itoobiya. waana boqortooyadii uu xukumayay halyeygii Imaam Axmed Ibraahim Qasali oo loo yaqaan Axmed Guri oo dhistay ciidamo laga soo ururiyay qabaa'ilka halkaa deganaa, asagoo duulaan ku ekeeyay fariisiin ciidanka Boortaqiiska ee magaalada Casab. waana maalintii la jebiyay ciidanka Boortaqiiska oo la qabtay taliyahoodii kadibna la dilay oo xaqiisa la mariyay. xilligaa waxaa dagaal ku soo biiray batalyan ka tirsan ciidanka Cusmaaniyiinta oo uu soo diray Suldaan Suleymaan al-Qaanuuni, ayadoo dhulka Xijaazna kaga soo biireen dagaalyahanno Yemeniin ah oo is abaabulay. waana colaaddii dhacday sanadkii 1542 taas oo sabab u noqotay inay Boortaqiiska dib uga laabtaan hankoodii ahaa inay qabriga rasuulka la baxaan.